حاوي أرجع نفك وكريو وبقول $170 كان غاوي كان هذا وحوج جوا وصدن $5 halkan waa saylada xoolaha ee magaalada Doobley iibka xoolaha nool ayaa sareeya gaar ahaan ariga sida ay qabaan gadisleyda suuqan inta badan xoolaha hadda xilligan lagu jiro qaali bay nagu yihiin laana bisabab waxaan u dhoofkaysan jirnaa xoolaha inta badan Kenya gobolka Costa iyo sidii waqooyi bari baa gaar ahaan naga qaadan jireen marka gobolkii waqooyi bari iyo Costa xoolahoodii baa soo hayaama oo hadda xaggan u soo doontay daaqi maadaama xilliga diraacda lagu jiro wadankan abaar ay ka dhacday wadankiina ay ka soo huleeleen ganacsatadii waqooyi bari iyo gobolka Costa nala joogo xoolaha marka inay qaali noqdaan saas ah koos gareynaysa waayaha ugu dambeeyso waxaan halkan kula kulmay ganacsato reer Gaarisa kuwaas oo xoolaha ay suuqana ka gadaan u iibgeeyay magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa meesha waxaan u imaaday inaan ari ka gato awalna waxaan ka gadan jiray Gaarisa County sababta meeshan inaan imaaday u kaliftay waxay ahayd abaaro darteed xoolaha oo wadanka Kenya deganaa oo soo hayaamay wadankan Soomaaliya soo galay abaar darteed wadanka uga soo dhacay sida ayada awgeed baan u soo daba kacnay xoolaha reer Gaaris baan ahay waxaan xoolaha ku ilmaha ku korsanaa ama uga baxsano waa arigaas ilaa iyo 18 sano ayaan ka shaqeynay dilaaleyda ayaan dhankooda wax ka weydiiyay qiimaha xoolaha ee suuqan meesha la keenay ugu badan baadiyahan afootigan kore oo Doobley sawaaxigeeda laga keenaa waxaana loo safriyaa ila aadiyaa xaggan Kismaayo oo Soomaaliya Kenya waa la aadiyaa oo Nairobi iyo waxa la aadiyaa Mombasa dhanka kale xoolo dhaqatada suuqan keena xoolaha ayaa qaba in iibka xoolaha uu hooseeyo halka ay ganacsatadu ku doodayaan in qiimuhu sareeyo erga lacag ma leh jela lacag ma leh xoolaha dhulka yeela 300 1 milyan wala gaareen sida ergu uga ciilan hadaas ka 1 milyan ma gaaris 800 ma dhaafis jela lacag ma joog dhulka bay xoolaha yeela dhulka ay yeela ninka lacag la wala dhulka yeela sarwa anaga dhulka anaga xoolaha lacag kuma haysan أنا حولا هذا العقل يجيلك أنا العقل يجيله أنا دوب بحن boqolaal kamida shacabka magaaladan ayaa siyaabo kala duwan nolol maalmeedkooda uga hela suuqan waxaana si isku mid ah wax loogu kala gataa lacagaha shilinka Soomaaliga dollarka iyo lacagta Kenya Maxamed Baruud Xuseen warbaahinta Doobley